السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإن سلام يا أصحابتك وحنا شكرا في الشيء وحنا دين ليه السود وهذا كله وناكسن وقت عافيمات قبو حالة دينية وحن كوري شحشح دينيني بحيث رجينا يا سود وهذا أصحابي وحنا دين ليه هيك سود وهذا قاع مفرن سيشير جري channel كيغا سبسكرايب سارة كومنتيغا وحن كوري كلا ياعها النقطة ما أنت وحنا دين وذاق صحنون بدن قصة سو مقعدة أنا أقول مقعد أنا marka leela wadaagay ana magaca u bixiyay abaalaabo jacayl qaybtii koobaad qisadan way qaybiyo badan tahay maxay lama dhameyn karo waa qiso dheer qaybtii koobaad iyo qisadii abaalaabo jacayl arba ay sheeg in indaha idinkaaga rogo idin aqriyo kulli qisada waxay ku dhacday gabar walaashii Soomaaliyeed maxaa la dhahaa markii leegaga sheekayeen ana yaabay idinkana waad yaabi doontaan waa qiso aan la farajay oo aan la cajiibay aan la ilaa hadda ama kaaga igu tahay laakiin idinkaaga hor dhici maayo kullay qaybaha soo socda iyo qaybteeda koobaad ba idinka ka bogan doona wixii ku saabsan tahay idinka ogaan doono waxa qisada ka dhihi lahaydeen commentiga baan ka aqri doona insha Allah gabadhani aku bilaabaya qisadeeda waxay tiri assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh waa idin salaamaya shukr official ya saxaabta ku xiran waxaan idin leeyahay ii soo duceeya inuu ilaahay qalbigayga samir fara badan iyo qabow iyo ilaahay ii galiyo kule aniga waan u duceeyay idinka waan u duceey doontaan san filaayo gabadhani waxay tiri waqti 9 sano ka hor ayaan waxay tiri magaalada Muqdisho anoo joogo aabahay oo Yurub joogo isoo wacay wuxuu igu yiri aaba macaan leen ayaan rabaa inaan kuu furo ka soo tag Soomaaliya waxa imaataa Kenya ayaa imaaday tiri caasimadeeda Nairobi gaar ahaan xaafadda Islii ayaa waxay tiri ka soo degay qolaf cid waxay tiri familkeyga ayaa ku soo degay qoraalka sida ku qoran familkii markaa ku soo degay tiri in muddo 3 bilood ayaan la joogay inta wixii marmarayay waan isfahmi weynay tiri familkii isbedel fara badan iyo waxay tiri waji bedel kulay ma aqaano dunida waa kala nooc waayaha adduunka ka mid tahay dhigi kara because hooyaday aabaha markaa ka soo tagtid waa dareemi kartaa dhibaatada intee la eg tahay arkaysid famil mis fahmaysiin maxaa yeelay qof shalay hooyadii gurigeeda ku noolaa soo doona u dhaqmay markii famil loo geeyo wallahi si la isku fahmo way adagtay laakiin idinka dhex kalimaa qisadii idin sii wadaya waxay tiri familkii waan isfahmi weynay qataato iyo muran fara badan qof dhalinyarana waan ahay waan isfahmi weynay tiri familkii marka isfahmi weynay aabahay ayaan u sheegay waxaan ku yiri tiri reerkan isfahmi meeno nasiib wanaag aabahay wuxuu yiri qol kireeso qol ayaan soo kireestay iskaabula qolkii markaan soo kireestay tiri halkaas ayaan biilkayga ku qaadanayay iskuul dhiga jiray tiri marka yani private school aad jiray wax barasho san uga sii barto maadaama wadanka uu socdo qurba yahay qurbahana waxa waaye luqada kala nooc looga hadlaa laakiin Englishka inta badan isticmaalaan dadka soo marka waxaan isticmaalayay tiri iskuul aadayay iskuulka anoo aadayo mushaarkayga qaato meel iska dhigin maalmaha kamid ah xaafadda Islii suuqa wareegay tiri ayaan waxaan arkay tiri wiil qurux badan ma sha Allah waan ka helay tiri laakiin nasiib wanaag asagana way igu soo leexday assalaamu calaykum walaashay iyo rafiican qeer isbareedin isbogaadin dabadeed hadii number kala qoranay numberkii markaa kala qoranay waa soo kala tagnay number kala qoranay tiri numberkii markaa kala qoranay waa soo kala tagnay xiriir qoto dheer iyo jacayl wanaagsan halka ka aasnay tiri laakiin aniga waxay tiri wiilkii intuu wahay ima fiican tahay dhihin anaaba ka helay si weyn oo iga dhaxbaxay tiri laakiin waxay tiri xiriir hadana meeshii yimid qof adiga damac ka galay marka hadana oo xiriir ku soo bandhigto jaceylka uu iska fudud yahay soo kugu galo marka waxay tiri ninkii waan is soo wacnay telefoonka waan kulanay wuxuu ii sheegay inuu iska buliyaha isagana sideedo kale iska bul ahaanne waxay tiri meeshii isku fahanay waan is soo wici jirnay waan is xiriiri jirnay waxaan uga fikiri jiray si aan nafsadeyda uga fikirinay tiri ninka nafteyda uga ma fikir sidaan uga fikiri jiray wiilkaasi tiri wuxuu ahaa nafsadeyda wuxuu ahaa indhahayga markii waxay tiri qaraabadii iyo familkii oo kale marka gurigooda tago kale ay dhahaan maxaa ku daba dhigay ninkan kii kale kuma qalmo caadi iska dhig aabaha qarash ku gelinooyo wadanka la u socotaa African jooga maxaa ku falay markay dhahan dadka waxaan damci jiray tiri in rarbaaxsho ku dhufto laakiin waxay tiri sidii jaceylkii loo waday oo ruuxdeedu ahaa waxaan ka fikiri jiray tiri asoona ii qabin saaka inuu quraacday inuu casheeyo inuu qadeeyo wiilka ina ogaado maxaa yeelay waxay tiri aan iskaabulaha asna iskaabula maxay naagta iskaabulada waxay karsanaysaa laakiin wiilka waxay tiri maqaayada waxa inuu ka doontaa laga yaabo familkii waxsido
marka inta badan waa wici jiray tiri kaala quraac cun imo gurigii dad waxaa noqonay tiri adiga saaxiibna ah jaceelna ka dhaxeeyo noloshiisa waa ka fikiri jiray laakiin maxaa dhacay tolow maxay noqon kartaa maxaa isdhihi kartiin ninkaa muxuu ku sameeyey gabadha maxaa ku dhaca isdhihi kartiin kolley idinma dhammayn karo qisadan qaybtii koowaad waxaan jecelahay inay halkaa inoo joogto laakiin qaybta labaad iyo saddexaad iyo afraad ka xaraarad badan insha allah abaalaabo jacayl qisada abaalaabo ayaan u bixiyay aniga idinkana kolley waad arki doontaan waxaan ku tilmaami laheedeen iyo magaca u bixi laheedeen waan idinka sugayaa insha allah haddana waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu halkaa ha inoo joogto qaybtii koowaad qisadii abaalaabo jacayl